Bismillahirrahmanirrahim daawadayaal waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa taariikhda guud ee degmada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Dunida News TV ayaad inaga daawanaysaan. Degmada Mahaday waxa ay ku taallaa gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waana mid ka mid ah degmooyinka leh taariikh fac weyn oo xididdo dheer ku leh sooyaalka siyaasadeed bulsho iyo dhaqan ee dalkeena Soomaaliya. Inkasta oo aysan si rasmi ah u jirin diiwaano badan oo qoran oo si sax ah u tilmaamaya sanadkii rasmiga ahaa ee la aasaasay degmada Mahaday, haddana xogaha badan iyo xusuusta dadka deegaanka waxay muujinayaan in degmada ay saldhig muhiim ah u ahayd xilligii gumeystaha Talyaaniga iyo intii ka dambeysay xornimada dalkeena Soomaaliya. Mahaday waxay ahayd deegaan caan ku ahaa wax soo saarka beeraha iyo xiriirka ganacsi ee u dhaxeeya magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka waxa ay aad diiradda u saari jireen horumarka dhinaca ganacsiga, waxayna asal ahaan ka mid ahaayeen bulshooyinka Soomaaliyeed ee si weyn ugu lug lahaa dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xoolaha iyo dalagga beeraha ee webiga Shabeelle. Markii la helay madax bannaanida Soomaaliya 1960kii, dowladdii rayidka ahayd ee ugu horeysay waxay bilowday in la sameeyo hab maamul deegaan oo nidaamsan. Degmada Mahadayna waxay si rasmi ah loogu aqoonsaday inay tahay degmo dhameystiran intii lagu guda jiray xilligii dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre, gaar ahaan sanadihii 1970kii. iyadoo loo eegayo tirada dadka ku nool, baaxadda deegaanka iyo muhiimadda dhaqaale ee ay leedahay, waxa uu madaxweynihii xilligaasi talada hayay ku dhawaaqay in ay tahay Mahaday degmo loona sameynayo golo deegaan. Go'aankan wuxuu qayb ka ahaa qorshayaal ballaaran oo lagu fidinayay adeegga dowladda iyo maamul wanaagga deegaanka. Intii ay socotay burburka dowladeed ee dhacay dabayaaqadii 1990kii, sida degmooyin badan oo kale, Mahaday waxay la kulantay hoos u dhac ku yimid adeegyada dawliga ah. Hase yeeshee, dadaalka bulshada deegaanka iyo maamulada ku meel gaarka ah ee dalka ka jira muddooyinkan dambe ayaa horseeday in degmada dib loogu aqoonsado doorkeeda muhiimka ah. Maantana Mahaday waxaa laga dareemayaa horumar dhinacyo kala duwan leh, waxaana socda dadaallo lagu xoojinayo adeegyada bulshada iyo xiriirka maamulada dalka. Degmada Mahaday waxa ay astaan taariikhi ah oo muujinaysa sida ay deegaanada Soomaaliyeed ugu lug lahaayeen halgankii gobonimo doonka dalka, horumarka bulshada iyo ilaalinta dhaqanka iyo hidaha suuban ee ummadda Soomaaliyeed. Waxa ay ku lahayd door muuqda oo aanan qarsoonayn. wahagaag wali waxaad inaga daawanaysaan Dunida News TV, waxaadna la socotaan taariikhda guud ee degmada Mahaday. Dhaqamada gaarka ah ee dadka degmada Mahaday. Dadka ku nool degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay leeyihiin dhaqan hodan ah oo si gaar ah u metela habnololeedka, xiriirka bulshada iyo suugaanta Soomaalida. Mahaday oo ku taalla dhul beereed barwaaqo ah oo uu maro webiga Shabeelle, waxay leedahay bulsho leh dhaqan soo jireen ah oo ay si weyn u xafidaan, loogana garan karo marka la barbar dhigo deegaanada kale ee ku hareeraysan. Mid ka mid ah dhaqamada gaarka ah ee dadka degmada Mahaday lagu yaqaano waa xiriirka adag ee beeraleyda iyo deegaanka. Beeraleyda Mahaday waxay leeyihiin dhaqan ku salaysan wada shaqayn, iskaashatooyin beeraley ah iyo nidaamyo dhaqameed oo lagu hago biyo qaybinta, goosashada iyo sidoo kale ilaalinta dalagyada. Waxaa la isku xushmeeyaa
marka uu qofku helo goosasho wanaagsan waxaana jirta caado ah in la isugu yeero dadka dariska ah si ay uga qayb qaataan farxadda goosashada taas oo lagu lamaaniyo cunto wadaag iyo mahadcelin. sidoo kale sooriyada iyo martisoorka waa dhaqamo aad loogu majeerto Mahaday. qofka martida ah wuxuu ku leeyahay qiimo sare bulshada dhexdeeda, waxaana dhaqankaasi sal u yahay galgaceelka iyo wadajirka bulshada deegaanka. marka la leeyahay soor Mahaday waxaa loola jeedaa cunto iyo iskaraameyn si deeqsinimo leh loo bixiyo oo aan la kala harin, gaar ahaan xilliyada ciidaha, aroosyada iyo martisoorka culus. suugaanta iyo gabayada beeraleyda waa qayb kale oo ka mid ah dhaqanka gaarka ah ee degmada Mahaday. beeraleyda iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka waxay curiyaan gabayo iyo mahmahyo ku salaysan nolosha beeraleyda, abaaraha, roobka iyo sidoo kale xiriirka bini aadamka. gabayadaasi waxaa inta badan lagu gudbiyaa xilliyada fadhi ku dirirka ah ee lagu cabo shaaha ama lagu nasto fiidkii. intaas waxa sii dheer, dumar badan oo ku nool degmada Mahaday waxay caan ku yihiin farsamada gacanta sida sameynta dharka dhaqameed, sidoo kale weelasha cagaarka ah iyo tolmada. waxa tan ay ka dhigtay in dhaqanka farshaxanka uu si weyn uga mid noqdo hidaha deegaanka, isla markaana ay wax weyn ku soo kordhiso dhaqaalaha qoyska. dadka Mahaday waa bulsho dhaqankeedu uu sal adag ku leeyahay wada noolaashaha, isqadarin iyo ilaalinta hidaha. dhaqamadaasi waxay ka turjumayaan galgaceelka ay u hayaan dhulkooda, dadkooda iyo noloshooda beeraleynimo ee barwaaqada leh. wahagaag saaxiibayaal, weli Dunida News TV ayaad inaga daawanaysaan. waxaan markana idinla wadaagayaa dhacdooyin taariikhi ah oo muhiim ah oo ka dhacay degmada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. Mahaday waxa soo martay dhacdooyin waaweyn oo raad ku reebay bulshada deegaanka iyo guud ahaan dalkeena Soomaaliya. gumaystihii Talyaaniga. dhacdooyinka ugu horeeyay ee muhiimka ah ee la xiriira Mahaday waxay dib ugu noqonayaan xilligii gumaystaha Talyaaniga 1900 meeyadii. Mahaday waxay ahayd deegaan ay si gaar ah u xiiseynayaan Talyaanigu sababo la xiriira dhulkeeda bacrimida leh iyo meel ku habboon in laga sameeyo saldhigyo beeraley ah. waxa la og yahay in gumaystayaashu ay ka hirgeliyeen goobo wax soo saar iyagoo sidoo kale adeegsanayay shaqaale Soomaali ah oo mararka qaar lagu qasbay. xilligii dowladii dhexe 1960 ilaa 1991 Mahaday waxay door muhiim ah ka qaadatay dhismaha dowladnimadii Soomaaliya ee xurnimada kadib. waxaa la xasuustaa in degmada laga soo doortay xildhibaano matalayay, waxaana halkaas laga dhisay xarumo dowladeed iyo xarumo waxbarasho. dhammaadkii 1970 iyo bilowgii 1980 Mahaday waxay ahayd xarun laga hirgeliyay mashaariic beeraley iyo sidoo kale mid korontada la xiriira, taasoo kor u qaaday dhaqaalaha deegaanka. colaadaha sokeeye ee soo maray 1991 ilaa 2000 kadib burburkii dowladii dhexe 1991 Mahaday sida gobolada kale ee dalkeena waxay wajahday qalalaase amni iyo dagaalo sokeeye, taas oo sababtay barakaca dadweyne iyo burbur ku yimid adeegyadii dowladeed ee jiray. dib u dhiska iyo maamul dhisida 2000 ilaa 2020 sanadihii ugu dambeeyay Mahaday waxay ka mid noqotay degmooyinka ay ka bilaabmeen dadaalo loogu jiro nabadeynta iyo dhismaha hay'adaha maamul. waxaa la xusuustaa shirar nabadeed oo lagu qabtay gudaha degmada, iyadoo sidoo kale lagu guuleystay in laga hortago colaadihii ka sii dari lahaa xaaladda amni intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2020.
degmada waxaa laga dareemay wax ka qabasho dhinacyada adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo biyogelinta ah. dhacdooyinka kala duwan waxay ka dhigeen degmada Mahaday deegaan leh taariikh murugsan oo isugu jirta horumar, halgan iyo caqabado. maanta degmada Mahaday waxay wajahaysaa fursado horumarineed iyo dadaalo lagu dhisayo mustaqbalka wanaagsan, iyadoo taariikhdeedu tahay xasuus iyo xigmad ay ka faa'iidi karaan jiilasha dambe. wagaag saaxiibayaal, weli Dunida News TV ayaad inaga daawanaysaan. waxaana ku guda jirnaa taariikhda degmada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. horumaradii ugu waaweynaa ee degmada Mahaday ee 10kii sano ee la soo dhaafay ay sameysay ayaan markana idin la wadaagi doonaa. waxaa ugu horeeya dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada dadweynaha. sanadihii dambe waxaa degmada laga hirgeliyay dayactir iyo dhisid wadooyin cusub oo isku xira Mahaday iyo tuulooyinka hoos yimaada. waxaa sidoo kale dib loo furay suuqyada ganacsiga oo horay u burburay intii lagu jiray dagaaladii sokeeye. isku xirka ganacsiga iyo gaadiidka gudaha ayaa sare u kacay, taasoo kor u qaaday dhaqaalaha beeraleyda iyo ganacsatada yaryar. kororka waxbarashada iyo furitaanka iskuulla cusub. Mahaday waxa ay sameysay horumar wax ku ool ah oo dhinaca waxbarashada ah. waxaa la dhisay dhowr iskuul hoose, dhexe iyo sidoo kale dugsiyo sare, halka kuwa horay u burburay la dayactiray. waxaa si gaar ah loo xusi karaa kororka ardayda gabdhaha ah ee maanta fursad u helay waxbarasho, taasoo laga dhaxlay wacyigelin badan oo ay sameeyeen bulshada iyo macallimiinta ka howlgasha iskuulka Sheekh Maxamed ee ku yaala gudaha degmada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale hay'adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya waxbarashada. horumarinta adeegyada caafimaadka. degmada Mahaday waxaa laga hirgeliyay xarumo caafimaad oo lagu bixiyo adeegyo caafimaad oo aasaasi ah sida tallaalka carruurta, ka hortagga cudurrada faafa iyo adeegyada umulisooyinka. waxaa sidoo kale kordhay tirada shaqaalaha caafimaadka ee deegaanka u dhashay oo tababaro qaatay, taas oo sare u qaadaysa tayada adeegyada caafimaadka. kobaca beeraha iyo mashaariicda biyaha. beeraleyda Mahaday waxay heleen taageero dhinaca qalabka beeraha ah, abuur tayo leh iyo sidoo kale tababaro la xiriira maareynta biyaha iyo ka faa'iideysiga webiga Shabeelle. waxaa la sameeyay kanaalo cusub oo waraabin ah, taas oo keentay wax soo saar kordhay oo dhinaca dalagyada sida galeyda iyo khudaarta kale ee ay aadka u isticmaalaan bulshada ku nool degmadaasi. sidoo kale mashaariic biyo nadiifin ah ayaa laga sameeyay tuulooyinka fogfog ee degmadaasi. dadaalada nabadda iyo isdhexgalka bulshada. xaflado nabadeed, shirar isfaham iyo sidoo kale dib u heshiisiin beeleed ayaa lagu qabtay Mahaday, kuwaas oo gacan ka geystay dhimista colaadaha deegaanka. waxaana la xasuustaa dadaalo ay hormuud ka ahaayeen odayaasha dhaqanka, culimada iyo haweenka deegaanka oo horseeday xasilooni amni oo la dareemay sanadihii ugu dambeeyay. Mahaday waxay 10ka sano ee u dambeysay ku tallaabsatay horumar muuqda, inkastoo weli ay jiraan caqabado badan oo u baahan in la xalliyo. horumarka la gaaray wuxuu cadeynayaa kartida iyo dadaalka bulshada deegaanka ee ku aadan dhismaha nolol dhaanta, horumar iyo sidoo kale nabad waarta. sidee ayay bulshada Mahaday u xafidaa taariikhda deegaanka? bulshada Mahaday ee gobolkan Shabeellaha Dhexe waxay leedahay hanaan dhaqameed iyo habdhaqan qoto dheer oo lagu xafido taariikhda deegaanka, iyagoo adeegsanaya qaabab suugaaneed, sheekooyin, qoraallo, xaflad dhaqameedyo ayay u suuro gashay in taariikhda degmada Mahaday ay si firfircoon u sii noolaato jiilba jiil. sheekooyinka iyo afka hooyo. habka ugu weyn ee bulshada Mahaday ay taariikhdeeda ku gudbiso waa sheeko reebka. odayaasha dhaqanka, haweenka waayeelka ah iyo sidoo kale dadka suugaanta yaqaana waxay xilliyada fadhi ku dirirka ama xafladaha bulshada ku soo bandhigaan sheekooyin la xiriira dhacdooyin taariikhi ah sida halgamadii deegaanka, masiibooyinkii dabiiciga ahaa,
dagaaladii hore ee beeleedyada iyo xilliyadii barwaaqada. sheekooyinkani waxa ay qayb ka yihiin dhaxal suugaaneed lagu barbaariyo jiilasha cusub. suugaanta gabayada iyo geeraarada. gabayada iyo geeraarada ayaa si qoto dheer uga qayb qaata kaydinta taariikhda Maasai. abwaanada deegaanka waxay mariyeen dhacdooyinka waaweyn ee taariikhiga ah eraya suugaaneed oo lagu xasuusan karo, taas oo suurto gelisay in dhacdooyin badan oo aysan jirin wax qoraal ah oo ka hadlaya lagu sii xasuusto. qoraallo gacanta lagu sameeyo iyo diiwaangelin. inkasta oo aysan jirin xarumo kaydiya taariikhda si rasmi ah sida maktabado waaweyn ama madxafyo, haddana waxaa jira qorayaal iyo culimo deegaanka ah oo qoraallo gaagaaban ku kaydiya taariikhaha muhiimka ah. qoraaladan waxaa lagu qoraa buug-yarayaal, waraaqo iyo mararka qaar xusuus qor dadban oo ku saabsan dhalashooyin, geeri, xusaska ciidaha iyo sidoo kale dhacdooyinka waaweyn ee bulshada deegaanka ka dhaca. heesaha dhaqanka iyo ciyaaraha hiddaha. heesaha dhaqanka ee la qaado xilliyada ciidaha iyo aroosyada sidoo kale waxay xambaarsan yihiin xusuuso taariikhi ah. waxaa jira ciyaaro dhaqameed sida ciyaaro dhaanto oo mararka qaar lagu luuqeeyo dhacdooyin taariikhi ah oo Maasai soo martay. shirarka dhaqameed iyo sidoo kale kulamada odayaasha. mararka qaarkood odayaasha dhaqanka iyo culimada deegaanka ayaa iskugu yimaada shirar si ay ugu xifdiyaan xusuusta dhacdooyinka waaweyn una gudbiyaan jiilasha cusub. shirkan waxaa sidoo kale laga sameeyaa xeerar dhaqameed cusub si loo ilaaliyo hiddaha iyo dhaqanka deegaanka. gabagabadii, xafididda taariikhda degmada Maasai waa mid ka dhaxaysa afka, suugaanta, qoraalada gacanta lagu diyaariyey iyo sidoo kale dhaqamada bulshada. inkastoo casriyeynta iyo tiknoolajiyadda aysan si buuxda uga faahfaahin deegaanka, dadaalka dadka deegaanka ayaa horseeday in taariikhda Maasai ay sii noolaato loona gudbiyo jiilka maanta iyo mustaqbalka. guud ahaan daawadayaal, waxaan halkaa kusoo gabagabeynaynaa taariikhda guud ee degmada Maasai ee gobolkan Shabeellaha Dhexe. anigoo Cabdiwahaab Cadow Maxamuud ayaa idinla socodsiinayay. inta aan mar kale halkan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaan idinka codsanaynaa inaad YouTube-keena Dunida News TV kusoo biirtaan, muuqaalkaynoo like garaysaan, sidoo kale aad share garaysaan oo saaxiibadiina aad la wadaagtaan, wixii aragtidiinaana qaybta faallada aad inoogu soo gudbisaan. inta aan mar kale kulmi doono, nabadgelyo saaxiibaya.